haddii aad rabto in aad fahanto sirta ka dambaysa inta badan waxa maanta ka dhacaya dalalka Carabta iyo Bariga Dhexe oo ay ku jiraan dagaalada, khilaafaadka iyo dhibaatooyinka siyaasadeed ee mar walba ka taagani halkaasi, ama xitaa aad rabto in aad fahanto sida ay u samaysmeen dhammaan dalalkan maanta ka jira iyo xadudahooda. marka hore waxaa muhiim ah in aad taqaanid sheekada boqortooyadii Cusmaaniyiinta, taasoo ahayd dowladdii xukumi jirtay ee ka talin jirtay dhulalkaasi, waxayna ka talinaysay in ka badan 600 oo sano. burburka dowladdani iyo dhammaadkeedu wuxuu ahaa bilowga dhabta ah ee dhibaatooyinka waaweyn ee maanta ka jira dalalka Carabta iyo guud ahaan muslimiintaba. haddaba aan ogaano sida ay u dhacday burburka dowladdii Cusmaaniyiinta, laakiin marka hore daawade fadlan ha ilaawin inaad fiidiyoga like saarto oo aad la wadaagto saaxiibadaada si uu dad badan u gaaro. sidoo kale subscribe saar kanaalka oo furo gambaleelka si fiidiyoyada cusub ee halkaan soo gelin doono ay ku soo gaaraan mar walba. sanadkii 1683 waxaa dhacday masiibo bedeshay mustaqbalka boqortooyadii weyneed ee Cusmaaniyiinta. sidoo kale waxaa soo afjarmay faafintii diinta Islaamka oo diinta Islaamka ay ku faafaysay dhulal badan oo caalamka ka mid ah. waxaa dhacay wuxuu ahaa bilowga iyo dhammaadka saldanadii Cusmaaniyiinta. dagaalkii weynaa ee Turkida ama dagaalkii loogu magac daray isbahaysiga Quduska wuxuu ahaa dagaal ay inta badan dalalka Yurub ay ku midoobeen kana dhan ahaa Cusmaaniyiinta oo looga soo horjeeday. waxaad oran kartaa tani waa wax caadi ah, horey ayay u dhici jirtay in Cusmaaniyiintu ay ku guuleysan jireen dagaalada. maxaa dhib ah markaan? su'aashaasi ayaa laga yaabaa in ay isweydiisay, laakiin waxaan ku leeyahay maya. markaani dagaalku si degdeg ah ayuu iskaga bedelay sidii hore, sababtoo ah khiyaanada uu sameeyey amiirka Qirim iyo khilaafaadkii ka taagnaa gudaha Cusmaaniyiinta, waxayna arrimahaasi ay noqdeen masiibo weyn oo gilgishay tiirkii ay ku taagneyd dowladdii weyneed ee Cusmaaniyiinta. dagaalkani Cusmaaniyiintu waxa ay u baxeen inay ka soo hooyaan guulo, balse nasiib darro waxa ay la kulmeen jab aad u xun, waxayna lumiyeen dhulal muhiim ah sida Hungary, Austria, Croatia iyo Poland. sidoo kalena waxa ay lumiyeen haybadii iyo sumcaddii ay sanado badan dhisayeen. markii ugu horreysay taariikhdoodana Cusmaaniyiintu waxa ay saxiixeen heshiisyo bahdilaad ah, kuwaas oo ay ku wareejinayeen dhulal Yurub ah, sida heshiisyada loogu magac daray Karlowitz, Kuja-Kaynarja iyo kuwo kaloo badan. halkaas ayayna ka muuqatay daciifnimada Cusmaaniyiinta xilli Yurub ay sii xoogaysanaysay oo horumar sameynaysay. dalal badan ay markaasi gacanta ku dhigaysay oo ay guumaysanaysay, isla markaana ay ku jirtay kacaan warshadeed iyo mid horumarineed. sababta ugu weyn ee daciifnimada Cusmaaniyiintu waxa ahayd ayaa la sheegaa ciidankii lagu magacaabi jiray Jaaniris in ay sameeyeen kacdoono aad u weyn, foodo, dhac, dil iyo in sidoo kale ay ka hor yimaadeen wax kasta oo isbeddel ah. waxay xitaa ay bilaabeen inay afgambiyaan suldaanadii xilligaasi jiray, qaarna way dileen sida Suldaan Cusmaankii labaad iyo Suldaan Selimkii saddexaad. sidoo kale burburka Cusmaaniyiintu xilligaasi soo gaaray waxaa ka mid ahaa xaaladda dhaqaale in ay sii xumaatay. awoodda dowladda iyo gobollada fogfog oo ay maamuli jirtay ayaa daciifay. haddii aad eegto khariiradii xilligaasi jirtay, waxaad ka arkaysaa in qoysas kale xukun duwan ay ka jireen dhulalka Syria, Ciraaq, Masar, Liibiya, Tunisia iyo Algeria, kuwaas oo doonayay in ay madax bannaani ka helaan Cusmaaniyiinta iyagoo rabay in ay la midoobaan guumeystihii reer Yurub. haddaba su'aal ayaa imaanaysa halkaasi oo ah, yaa ka faa'iidaystay foodadan ee gashay dowladda Cusmaaniyiinta? haddii aad tiraahdo waxaa ka faa'iidaystay Ruushka, waxaan ku leeyahay waa sax, sababtoo ah Ruushku wuxuu la galay Cusmaaniyiinta 11 dagaal muddo ka badan 300 oo sano. sababtuna waxa ay ahayd in uu doonayay in uu soo celiyo awooddii uu ku lahaa Byzantines. sidoo kale Yurub ayaa ka faa'iidaysatay, waxa ayna xaaladdu noqotay sidaani: Ruushka oo ka imaanaya waqooyiga iyo Australia iyo dalalka Yurub oo ka imaanaya galbeed ayaa u qabsaday dhulalkii Cusmaaniyiinta mid mid. ciidankii Jaaniris waxa ay noqdeen kuwa ku adag dadka iyo suldaanada, balse marka loo eego dhanka cadowgana waxay noqdeen kuwa aad u daciif ah oo kana baqa cadowga.
guumaystihii Faransiiska ayaa qabsaday Masar oo hoos imaanaysay boqortooyadii Cusmaaniyiinta, wuxuuna qabsaday sanadka markuu ahaa 1798 taasoo keentay soo bixitaanka nin lagu magacaabi jiray Maxamed Cali Baasha. sidoo kale jasiiradda Carabta waxaa ka soo ifbaxay dhaqdhaqaaqii Wahaabiyada oo uu hogaaminayay Aala Sacuud iyo Sheekh Maxamed Cabdul Wahaab, waxayna qabsadeen Najdi, Xijaas, Makka iyo Madiina, kuwaas oo hoos imaan jiray boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo ciidankeeda. tanina waxay ahayd dharbaaxo aad u weyn oo moraal ahaan ku dhacday Cusmaaniyiinta. sanadkii 1808 Suldaan Maxmuudkii labaad ayaa xukunka la wareegay kadib markii ciidankii Janissaries ay dileen suldaankii ka horreeyay isaga.